aad iyo aad bay farxad iigu tahay inaan ka soo qayb galo xafladan aad iyo aad ka quruxda badan sida wanaagsan loo soo agaasimay farxadda iyo xaragada faraha badan ka muuqato runtii waa wax aad iyo aad u weyn marka aad iyo aad baan u faraxsanahay hadalkii waa la iska dhamaystay caawa kale waxa uu halkan loo yimi waa laba kelmadood waxa weeye waa hambalyo iyo taageero marka maamulka maakhir cows ee 17 jirsaday ee waliba waxa weeye caawade waxay u egtay sidii cabdi bilayn uu ordayo waa laba kaclayn baan u malaynayaa aad iyo aad bay uga muuqataa ifafaale aad u wanaagsan baan arkaa marka aad iyo aad baan ugu hambaliyeynayaa khayr iyo barako iyo horumar baan u rajaynayaa anigu maakhir ama gobolka maakhir cows ima cusba waa goboladan ku soo koray ku soo barbaaray geela ku raaci jiray maalintii magaalo lay keenayeyna anigoo geel ka waraabinaya buraan ayaa adeerkayo burca jooga yiri kii yaraa malcaamad iyo waxbarashaan ku daraya hal la soo kaxeeyo isha buraan anigoo geela ka waraabinaya baa layga soo dhaqaajiyey korku xooglihii xuseen dhaadyar ayaa layga soo saaray magaalada xingalool marka waa gobol aan aad u garanayo aad u jecelahay isaga iyo dadkiisaba markii ugu dambaysayna 2012 baan tegey ilaa laas qoray ilaa badhan hadaaftimo iyo meelo badan waan soo wada maray runtii sidii uu Sheekh Cali Gureyba sheegay gobolkaasi waa gobol aad u barwaaqo ah intii la sheegi jiray bad iyo buur iyo berri iyo baad iyo wax kasta oo yaani ummadi ay barwaaqo iyo ku sheegan karta ayaa yeela waa gobol inta degta ka badan Soomaaliya oo dhan ka badan wax badan laga qaban karo runtii waxaan rajaynayaa inay guul iyo horumar ay badan laga sameeyo loo soo jeesto ifafaalaheedina waa aragnaa de guul baan inoo rajaynayaa Soomaalina waxa weeye waynu jecelayn sidii ay ahaan jirtay say isugu duubnaan jirtay quwadaynu geeska Afrika ku lahaan jirnay inagu ma aynan keenin xaafadda calamada faraha badan laakiin intay isu soo miyirsanayso waxa weeye xaafad waliba inay si soo dhisto waliba iyadoo xaafadan iyo inta ku heegaarani ay tahay inta aad iyo aad Soomaalinimadii ugu taagan waligoodna ugu taagnaa taariikhda ku lahaa ku suntanaa ilaa iminkana waxaan rajaynaynaa inay halkaa ka soo bilaabmayso maakhir iyo khaatumo iyo intii taariikhda wadaagtay halkii ay markii horeba ka keeneen inay maantana ka keeni doonaan Soomaaliyana insha Allah midoobi doonto isu iman doonto ilaahay nasri u keeni doono khayr iyo guul iyo barwaaqo iyo rajaynaya aad iyo aad baad u mahadsantihiin guulaysta maakhir cows ha guulaysato